anugu maanta haddaan u shaqo tago Dubai sharci baa leegu xijeynaya Kenya Ethiopia u dhow mustawaqa iyo kibanda layga rabaa Djibouti kaar baa layga rabaa waddankeygana waxa lagu joogaa si bilaash ah oo lacagtiisa iyo dollarkiisa lagu guranaya magaaladayda waxa laga dhisayaa Delhi iyo Ankara anna lacagta aan helo magaaladaydan ku gelin lahaa hooyaday baan siin lahaa naagtaydaan siin lahaa walaalkay baan siin lahaa saaxiibkayba shaay ugu cabbi lahaa annagu haddaan nahay muruqmaal laba qola kala baxnaa marka hore muruqmaal baan dabadad labaanu noqonnaa waa xamaali iyo xirfadyahan laba qolaana duulaan nagu soo qaaday qolo waa ajnabiga cadcad oo Eeshiyaanka qolana waa Afrikan hagaag qolada cadcadayd waxay qaadatay shaqooyinka dhismooyinka aanu qabanaynay hadday ranji tahay hadday tubaysta tahay hadday farayaamo tahay hadday mutuleel tahay xitaa sandaqadihii la dhisayo injiga iyo meelaha laga dhisayay waxaan arkayay Bangladesh iyo Turkiyaan dhisaya annagana shaqada iska leh xamaal baa ku soo haray xamaalkii waxa naga qaatay Oromo Ugandays iyo nimanka liyada Kenyaati xamaalkii waxaan arkayay niman xitaa dareewalada xitaa la dhacay shaqooyinkeena kor iyo hoosba waa la qaatay waxa weeye waxaanu codsanaynaa in dadkaana la ka qabto xaq waxaan u leenahay haddaanu muwaadiniin nahay shaqadoodii la dhacay sida dawladaha adduunka South Africa waad aragteen waddanka la yiraahdo Poland waad aragteen waddanna fara badan waxay kiciyeen wax la yiraahdo xenophobia anugu 2008 South Africa aan joogay marka xenophobia-du dhacaysay waxa dukaankayga lagu biliqsaday lagu boobay waddankayga shaqadiisii baad qaadatay qofku waddankiisa si badan buu ugu diriri karaa hadda anagu codsi baanu taagannahay laakiin dib waxay ka noqon doontaa maaqan nimanka ajnabiga ah oo duulaanka nagu soo qaaday in nala ka dulkiciyo iyo nimanka Soomaalida oo ayagu horgalka u ah nimanka in wax nala ka dhaho oo nala ka qabto rag badan oo maanta Soomaaliya qadaya wiil Soomaaliyeed hadduu baahdo waxa imanaysa in waddanka amni darradiisu ay sii siyaado sababtoo ah ninkii waaya wuxuu qabto oo wanaagsan wuxuu qabto xun buu helayaa deewaana iska muuqata dawladda waxaan ku codsanaynaa heer dawlad degaan iyo heer federaal inay mushkiladan soo farageliso oo wax ka qabato inta goor tahay hadda baaga muddada waxaan maraynaa ayaa bilaa camalka 2 sano anigan kula hadlay 2 sano si fiican ma shaqayn sanad kale haddaan ku darsadana dee waxa weeye waa si kalan sii noqonaya wasaaradda shaqadii shaqaalaha waxaan leeyahay shaqaalaheedii baanu nahay shacabkeedii baanu nahay wiilasheedii baanu nahay inay annaga noo naxdo aysan liminta naga siinin dadka ajnabiga ah oo waddankeena boobka ku soo qaaday waddanka anugu maanta haddaan u shaqo tago Dubai sharci baa leegu xijeynaya Kenya Ethiopia u dhow mustawaqa iyo kibanda layga rabaa Djibouti kaar baa layga rabaa waddankeygana waxa lagu joogaa si bilaash ah oo lacagtiisa iyo dollarkiisa lagu guranaya magaaladayda waxa laga dhisayaa Delhi iyo Ankara anna lacagta aan helo magaaladaydan ku gelin lahaa hooyaday baan siin lahaa naagtaydaan siin lahaa walaalkay baan siin lahaa saaxiibkayba shaay ugu cabbi lahaa